Atlantic Hospital hoyga caafimaadka dhallaanka xilli ay muqdisho meel walba ka holcaysay ayuu Dr. Cubeyd Daahir si geesinimo leh ugu istaagay badbaadinta dhallaanka Soomaaliyeed wuxuuna sanadkii 2005 aasaasay isbitaalka Atlantic waana isbitaalka kaliya ee private ah ee si gaar ah ugu takhasusay cudurrada carruurta ee magaalada Muqdisho. Hadafka Atlantic waa yareynta dhimashada iyo cudurrada carruurta si loo dhiso bulsho caafimaad qabta. Dr. Cubeyd oo ah aasaasaha isbitaalka waa khabiir ku takhasusay daweynta cudurrada carruurta waxna ku soo bartay dalal badan oo caalami ah isagoo khibrad sare ka helay Italy, UK iyo Soomaaliya. Isbitaalka waxaa kale oo ka howlgala dhakhaatiir Soomaaliyeed oo leh aqoon sare iyo waayo-aragnimo lagu kalsoonaan karo. Adeegyada isbitaalka waxaa ka mid ah baarista iyo la socoshada caafimaadka carruurta, qaybta bukaan socodka, qaybta bukaan jiifka, tallaalka carruurta, qaybta emergency-ga, qaybta xanaaneynta ilmaha aan biladhamaysan, adeeg 24 saac ah maalin iyo habeenba. Booqo xarunta isbitaalka Atlantic oo ku taala jidka warshadaha ka soo horjeedka isbartiibada weyn ama kala xiriir nambarada shaashada ku qoran.